ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaan ka bilaabanaa insha allahu tacaala darsigeedii 13aad ee kitaabkeena taysiiru lfaraa'id calaa طariiqati su'aalin wa jawaab, halka uu yidhi alakdariyatu. waxaan ku dhex jirnay masaa-ishii masaa'ilu ljaddi walikhwa. masaladeen ka qaadanaana waa alakdariya. waxaanu soo aragnay inuu soo tilmaamay xaalaadkii waxa weeyaan aljad walikhwa inuu laba u kala qaaday: saaxibu fardin in uuna la joogin iyo saaxibu fardin inuu la joogo. xaaladda labaad waxay ahayd saaxibu fardin inuu la joogo. saddex arrimood ka u fiicana dhaxalka jidku waa ahaa in la siiyo muqaasamo iyo thuluthulbaaqi iyo sudus. wuxuuna soo sheegay xoolaha sudus mooyaane wax kale haddayna soo hadhin oo waxa soo hadhayba sudus uun yahay oo sudus waxba ayna dheerayn, ama sudus uu ka yaraadaba oo sudus wax ka yar uu soo haro, markaa jidkuunbaa la siinayaa, cid kale waxba lama siinayo. oo hadday dhacdo markii asxaabul furuudkii waxoodii la siiyo inta soo hadhay sudus uun inay tahay sudus keliyaata, ama sudusay hoos uga degtaba sudus ay ka yaraataba, markaa waxaa la siinayaa jadka. leanna waxa weeyaan jadku waxa uu qaataa marka ugu yaraysto sudus buu qaataa. suduskiisu ha ahaada mid u buuxo u dhammaystiran ama mid cawlgalayo oo wax ka yar dhimayaan sida dadka kaleba wax uga dhimayaan ee meesha jooga. haddii masalada cawlgalo ha ahaadee waxa ugu yar sudus buu weeyaan jadku uu qaadanayo. haddaba haddii uu sudus un soo haro, dee suduskaa waxaa qaadanaya jadkii, walaalihii way iska tegayaan. hore uu soo ishaarnay hal mas'alaa jirta haddaba, iyadoo wixii meesha yaalay uu sudus u noqday, haddana jadka ciddii wehelisay ee walaalaha ahaa ayna tegaynin oo ay la dhexlayaan, taas akdariya la ydhahdaa. waata darsigeenu ka bilaabnayo. alakdariyatu udkur waxaad sheegtaa arkaana alakdariya. alakdariya waxa loogu bixiyeyna oo macnaha ay wadato xagga dambe ka ogaanana insha allahu tacaala. udkur waxaad sheegtaa arkaana alakdariya, mas'alada la ydhaahdo alakdariya tiirarkeeda inoo sheeg. jawaabta arkaanuhaa tiirarkeedu hiya waxa weeye zawjun wa zawj, wa ummun iyo hooyo, wa jaddun awow, wa ukhtun ligayri ummin oo ah ukhtun shaqiiqa ama ukhtun liab, labadaa mid ka mida ah. ukhtun ligayri wuxuu u yidhi si ay labada ukhtuba usoo galaan, ukhtun shaqiiqa ama ukhtun liab. markaa wa ukhtun shaqiiqatun aw ukhtun liabin waxaa kuu kulminaya ukhtun ligayri in la yidhaahdo, walaashii xagga hooyo aan ahayn. walaasha xagga hooyo iyo walaalaha xagga hooyo oo dhan jadku inuu xijaabayo wayn soo aragnay. iyaga kuwa laga hadlaya ma ah, kuwa laga hadlaya walaalaha xagga aabbo ama walaalaha xagga aabiyo xagga hooyaa laga hadlaya. markaa zawj jad, ciddan jadka la joogtaa waa walaashii xagga hooyo tii aan ahaynoo tii xagga hooyo xagga aabba ahayd ama xagga aabuun ahayd. labadaa mid ka mid a ayaa meeshii joogta. labaduba ma wada joogaan, waa labada mid ka mid a ayaa meeshii joogta. masalada caynkaasi yaaba akdariya la ydhahdaa. fa aslu lmas'alati min 6. isagaa markaa qaabka loo qaybinayo iyo qaabka loo dhisaya waa kuu sheegaya. dee wuu kuu sheegi, laakiin dhisidii waxaas insha allahu tacaala xagga dambe inoogu imanaya. marka hadda waynu iska akriyaynaa uun, qofka fahamsana alxamdulilah, ka kalena qaabka wax loo dhisaa waa cashar soo socdo, hadda ha ku habsaamin, ha iskuna daalin. fa aslu lmas'alati min 6. masalada asalkeedu 6 buu ka ahaaday, 6 baa lagu dhisayaa. masaladan oo kale 6 baa lagu dhisaa, oo niyo sidee 6 loogu dhisayaa? asalkan 6 sidee loo keenaya? de waa cashar soo socdo, waa ninka kuuliyo uu ku imanaya insha allah. lizawji nisfu,
zawjkii waxa u sugnaaday lixdaa niskeedoo halaahatun ah saddex walilummi hooyadiina athuluthu thuluth baa u sugnaado ithnaani laba ah markaynu asalkii lix ka dhigno oo xagga wax laga soo qaybiyo zawjkii saddex la siiyo waa nisfigiisii hooyadiina thuluth la siiyo waa laba isku shan bay qaateen xabadunbaa baaqiya xabaduna waa sudus waa xabadan baaqiga xoolaha markii lix asalkii laga dhigay maxay ka tahay sudus bay ka tahay oo lixdaas suduskeedu waa xabad waxaan soo aragnay haddii jadka iyo ikhwada waxa usoo hadhaan sudus keliyaata uu noqdo jadkuunbaa la siiyaa walaaluhu way iska tegayaan waxba qaadan maayaan walaaluhu way iska tegayaanoo waxba qaadan maayaan ayaan soo aragnay oo iminka xaggaas ukhtun ay tahay hadduu noqon lahaa zawjun ummun jaddun iyo akhun hadduu sidaa noqon lahaa zawjun iyo ummun labadaa qof jaddun iyo akhun akhaasi waa iska tegi lahaa waxaa muuqaateen inagoo baabuljad walikhwa ku jirna waxaa muuqaateen zawjun ummun jaddun iyo akhun akhaasi waxaa muuqaateen sababta una waxba u qaadanayna waxay tahay de xoolihii waxa soo hadhayaaba waa sudus unbaa soo hadhay xoolaha gebigoodiiba sudus unbaa soo hadhay dee suduskaana waa intuu jidku qaadan jiray oo sudusku wax ka yar ma qaato haddii suduska la yidhaahdaha loo qaybiyo jidkii iyo wax weeyaan walaalka meesha jooga in lala qaybsado wixii uu isagu heli lahaa bay noqonaysaa waxa ugu yeera jidku helaana waxa weeyaan sudus uun sudus dee dhamaystiran ama cawlmay haddii xaalad cawl la taagan yahay hadda laakiin markii ay xagga noqoto ukhtun shaqiiqa ama ukhtun li-abay noqotay waxaa la yidhi ukhtadaasi iyana dhicine waxa weeyaan jadkii xoolaha ha loola qaybiya baa la yidhi marka waa meesha laga soo reebayo mas'alo jadkii iyo ikhwadii joogay waxaa soo hadhay uu noqday sudus keliyaata ama ka yar haddii siduu soo hadhay inuu walaalka meesha jooga oo dhacaal isku ogaayay iyadu dhici mayso oo laga soo reebaya walilummi thuluth ithnaani hooyadii thuluth bay qaadana waa laba waliljaddi sudsun waaxidun jadkiina sudus buu helayaa oo xabad ah waa sidaa marka la yidhaahdo saddex ay uu qaato zawjkii labana ay qaadato hooyo waa isku shan jadkiina sudus xabada u qaato waa lix maxaa soo hadhay waxaa lagu leeyahay walilukti nisfu halaathatu ukhtadiina nisfi sii oo saddex ah ukhtadiina waxaad siisaa nisfi oo saddex ah hadda qaabka loo wada fahm waa sababta ay u leeyihiin ukhtadana maanta dhici mayso ukhtadii nisfi sii oo saddex ah soo ma aragti marka waxay leeyihiin zawj waxaan siinaa nisfigiisii oo waa saddex farac waarithaa meeshii ma joogo umna waxaan siinanaa thuluth farac waarithaa ma joogo jamac walaalana ma joogaan jadkanna sudus baa dee soo hadhee suduskiisii sii ukhtun haddaba may dhici haddii la yidhaahdo ukhtun way dhacaysaa waxay leeyihiin oo maxay u dhacday ukhtun maxay wax u qaadan weyday lianna ukhtun waxay ahayd gabadh qaadatay nisfi waa qodobka labaad qof casaba sideeda hore wax ugu dhaxasho qof casabeeya hadduuna jirin may ahayn ee fardi bay qaadan jirtay qof casabeeyaa maanta meeshii ma joogo cid xijaabtaana meeshii ma joogto waana xabad keliyaata markaa nisfigeedii aynu siino bay idhahdeen nisfigeedii aynu siino laakiin xagga dambe da isbedel baa dhacaye waa marka hore tacliilka la sheegayo ilan jadkana waa tii la yidhi walaalihii ma xijaabaye markaa bal horta uktadii nisfigeedii sii waa saddexe halaahatun kadib lixdii hore saddexuu qaatay zawjkii iyo laba ay qaatay iyo xabaduu qaatay jadkii waa isku lixe saddexdii ku dar uktada hadda ay siinay ila nisfiga qaatay waa sagaal fatacuulu lmas'alatu ilaa tisca mas'aladii waxay u cawlmaysaa sagaal yacni asalkii laga dhiso lixda ahaa ayaa waxaa ka batay wixii dadka la siiyey oo sagaal buu isku noqday cawlna waa wax inoo imanaya hadda qawaaciddu inoo xifdi insha allah laakiin cawlkan da waa cashir soo socdo hadda hasku sii daayo hadalkaa guudun ka hayso masaladii waxay u cawlmaysaa sagaalo bimacnaa lix halkii lagaga dhisay dhiskeedii waa isbedelayo sagaal bay noqon qof walbaana wixiisa goordhow waxbaa ka dhimi doona oo cawlku waa inoo imanaya
انت مركي السمايو ايا waxa la leeyahay hada thumma yujma'u limashi jadi ukhta inoo jooge thumma yujma'u waxa la isku daraya nasiibul jaddi wal ukhti jadkii ukhtadii baa la isku daraya nasiibkoodii wala isku daraya ilaa hadii sida lagu daayo waxa soo baxaysa inay ukhtadii qaadatay saddex jadkiina uu qaatay xabad mid walba cawd baa ku jira dabcan cawd kuma dhigan doonaa laakiin dad tiraahan tan saddex ay qaadatay kana xabad buu qaatay soo ma aragtaan ukhtadii baa ka xoolo basatay maxay jadkii qawaacidan dhiganay oo dhan waxay ku dhisnaayeen ikhwada meesha joogta iyo jadka dhaxalka marka loo qaybinayo hadii la yiri jadkii xijaabi maayo in la fiiriyo maxaa jadka u fiican mar walba waan eegi lahayn oo saddex arrimoodka u fiican laba arrimoodka u fiican ayuu jadku qaadanaya hadday sidaa noqdaan walaaluhu isaga waxa weeyaan muqaasamaha qaato ha la qaybsado saas u fiican hadday walaaluhu bataan iyuna la qaybsanay ثلث هقاته الثلث الباقي هقاته أما الثلث هقاته أما السدس هقاته حالاتك وأنا جي سوى ذا تبقى كان واحد دعس إلي أختي كبر صوته سنة تاسوي عيد واحد ليري يسكوجو صوت دربار تبع طلع والله هربك اللي جا صوبحه وحي قاتو صدح أها يوحو قاتو حبدا يسكدر ثم يجمع نصيب الجد والأخت والسكدر ليقتسماها سيوقف صلاة انت عفر تارس كدر صدح رايح حبدا عفر لسكارديو اي دب لو قيبنيا ليقتسماها سيوقف صلاة جدكي وقتدي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين قاب تعصيبا سيوقف صلاة يدور لبك يوسغنانيو لبلابك ددكو ودوانا يعني جدكو بركو اخوده جوجو اختها دي ميشا جوجتو جدكو لبلابك يدبو قاطع سدا اختها اخا لا جوجا او قادانيا لبلابك اختها جدكنا ما تاخو كلا laga soo qaadiy marka iskugu dar ugu qaybi saddex meelood qaybiyo laba jadka si meel la si waxa weeyaan uqtada sidii tacsiibka hadii dhakar mithlu hadal muthayn fayakunu nasiibuhuma arba'a waxay helayeen afar buu isku noqday waruusuhuma thalatha madaxyadooduna waa saddexo jadka laba laga soo qaaday in laba uqto u dhigmay laba laga soo qaaday xabad uqta والنسبة بين الثلاثة والأربعة صدحدان رؤوس تودا والله بقى لقى سوق هذا جدك لبا مدح ولا لقى سوق هذا جدك يقتدي هالمدحة صدحدان مدح والأربعة يأفرتي نصيب كوداها أنت هلين صدح لي اقتدوا هالشيء حبدي وهلا جدك واسكو أفرحها لما ذا برك اللي يقترحان محاكد حاجة هي التباين نسبة كده حيسوي التباين والله ما تروح للدول إن شاء الله تعالى وحسنا وحنا وصوصنا هذا سيقولون سيفهم فنضرب رؤوسهما ثلاثة رؤوس تصدح لا بوح نقول فريا في عول المسألة 9 المسألة حقي وعولنتي أصل كي اللي يحبوها لكن سقال بيو عولنتي سقال كي ونقول فريا فتبلغ 27 مركي نقول تصدح سقال وإحنا نقول ساعة تضبية لوات وهي مصح المسألة ومسألة حقي كان صحدي بعد الكسر شبد marka masaladu laga jabtay wax xaqay ka ansaxday waxa soo dhan waa 10 marayay hadda si guudo wixii aad fahmi karto oo faham iyo aqdariyo iyo guud ahaan waxay tahay inta ku dhimanna de baabul xisaabkaad markaad fahanto baad ku soo noqonaysaa xaqay si aad u fahanto masaladu wixii ka dhina saas ku qabsanaysaa 12 way lizawj hadaba وهي مصح المسألة بعد الكسر تضبير عتاك سواء مسألة حقي كان صحيح جبد بديل للزوج 9 زوجك سقال باو سغناده وللأم 6 هو يدير له وللجد والأخت 12 جدكي أختدي waxa soo haray 12 afartii sahmiye heleen ayaa lagu dhufanaya saddexdoodii madax waa 12 kadib 12 kaasina ugu qeybanana imika jaddi أختدي للذكر مثل حظ الأنثيين له 8 سدد بو قادن ولها 4 يدنا 4 بي قادن سو سدد بو قادن يدنا 4 بي قادن اللي بالله بو كنو قريه وابا انتي لو سعودي marka khulaasada waa maxay waa meel xoolaha inta soo hadhay uu yahay sudus kaliyaad qaacidadu ay ahayd walaalaha meesha jooga hay iska tagaan suduskaana jadku waa qaato qaacidadii mas'aladana khilaaftay akdariya loo yaqaano oo uqtada joogtaa la yiri tagi meesha ha qaadato marka koowaad nisfi baa la soo siiyay haddana waxay heshay wuxuu helay baa la iskugu daray dib baa loogu sii kala qaybiyay inta saddex loo qaybiyay baa laba la siiyay جدك ميل نسيجي يختار مسألة عينك سيا أكدرية على هذا
khulaasaduna waxa weeyaan akdariyada masalada la yidhaahdo waa mid laga soo reebayo meeshii lalahaa sudus keliyataa hadduu soo haro walaaluhu ha iska dhacaan oo suduskaa jadku ha qaato meeshii sidaa lalahaa ayay ka tahay mustathnaa mid laga soo reebay. limaada sumiyat hadihi lmas'alatu bilakdariya waa tan magacii akdariya waxay hadda ah masaladan maxaa loogu bixiyay akdariyo. sumiyat hadihi lmas'alatu bilakdariya su-aashan iyo masaladan akdariya waxaa loogu magacaabay liannaha kadarat waxay dhooqaysay qawaacida baabi aljaddi walikhwa qawaaciddii loo dejiyey baabkii aljad walikhwa ayaabay dhooqaysay ee asaabiqatii loo soo horamaray oo sidaba u dhooqaysay waxa weeyaan u khilaaftay xayثu meeloo khaalafatha ay ku khilaaftay fi halaaثati umuuri saddex arrimood bay ku khilaaftay qawaaciddii meesha aynu soo dhigan ee lasoo arkay. kow ana qaacidata hada albaab baabkan aljad walikhwa qaacidadiisu waxa weeye idaa lam yabqa ila sudus mooyaane wax kale hadduuna soo harin an yasquda alikhwa inay walaaluhu dhacaan waa qaacido. wahuna fi lakdariya masaladan akdariya dhexdeedna lam tasqud aluktu walaashii may dhicin waa qaacida ay khilaafto waa in dhowr ku celcelin. laba ana masaa'il hada albaab baabkan markaynu joogno baabuljad walikhwa masaa-ishiisu laa tacuulu cawlba ma galo. baabuljad walikhwa wax cawlmaya intay soo arkinay imika tusaalayaasho lahaa waxaasaa cawlmaya muu jirin laakiin halkan waxbaa cawlmayan maqalnay. cawlkuna waa cashar soo socdo inoo imanaya insha allahu tacaala oo masalada halka asalka looga dhiga laga qaybinayo iyo qof walba waxa uu qaato inay isleekaadaanba loo baahan yahay. waxay dadku qaateen hadduu ka bato wixii lagu dhisay cawl baa la yidhaahdaayo sihaamtii ayaa waxay ka badatay asalkii cawl baa loo yaqaana waa cashar inoo imanaya insha allahu tacaala. baabkan haddaba masaa-ishiisu ma cawlanto walakdariyatu caalat masaladana cawl baa galayo qof walba wuxuu qaadanayay markii la isku daray asalkii bay ka badatay. annahu fii gayri lmucaadda masalada almucaadda la yidhaahdo ee soo socota waxaan ka ahayn laa yufradu lilukti fi hada albaab uktadu wax fardiyaa ma qaadato baabkan baabuljad walikhwa meelay qaadato uktadu fardi masalatu lmucaadda oo tan ku xigta ayaa la hayaa laakiin meel kale fardi may qaadan jirin jirine jadka waxaa la xisaabin jiray uun sidii ah oo kale yatacasaba ahaan ayay u qaadan jireen walaalaha meesha joogiya jadku waxa weeya hadday qaybsanayaanoo ragguna jadka wax isleegubay isku mid ay qaadan jireen jadka iyo raggu hablaha meesha joogaana haafka ikhwada ragga iyo jadka ayay qaadan jireen oo jadka iyo ikhwada kale ragga ahi labilaab bay ku noqon jireen ukhtada ama akhwaadka meesha jooga saasay ahayd. nacam wax fardiya lama siin jirin. وفي الأكدرية مسألة الأكدرية فرض لها فرض بالسيبة وإنك نري بهارت أختصية وحويان نصف جيدي مركا فرض بالسيبة وحاول اسكوغا wax fardiya mucaado oo soo socota aan ka ahayn inaan la bixin halkana fardi baa la siiyay saddexda arrimood bay ku khilaaftay si akdariya loo bixiyay waa masaladii qawaacid dhooqaysay baa la yidhi asbaab kaloo la sheegay in loogu bixiyayna way jirtaa laakiin hadda waxyaabaha aynu sheegnay magacaas ayaa markaa taasaa ku haboon alakdariya waa masaladii dhooqaysay qawaacidda baabuljad walikhwa bacda khilaaftay waxyaaba kale in loogu bixiyeyna culamada qaar baa sheegay mar dambe la ogaan doona insha allah. wahadihi lmas'alatu masaladani kamaa kadarat siday u dhooqaysay u khilaaftay qawaacida baab aljaddi walikhwa qawaaciddii loo dejiyey aljad walikhwa siday u khilaaftay faqad kadarat aydan sidoo kale waxay khilaaftay qawaacid alfaraa'id qawaaciddii faraa'idkay khilaaftay min wajhayn laba meelood waa ka khilaaftay wahuma waxa weeye annahu laysa fi lfaraa'idi faraa'idka iyo cilmiga dhaxalka laguma oga fardaani mustaqilaani laba fardi oo madax banaan oo yudamu axaduhumaa ila athani mid ka kale lagu daro weli maynaan maqal qofkaasi fardigu uu qaadanayo iyo qofkaasi fardigu uu qaadanayo kala madaxa banaan isku dara wax weeyaan meelaan kusoo aragnay may jirto halkan laakiin waad aragtaa waa tii la yidhi waa baljadku sudusku qaatay xabadda uu ku helay iyo ukhtada nisfigii la siiyey saddexda ee ku heshay isku dar wax la isku darayo laba fardiyo oo kala duwana maynaan soo arag marka qawaaciddii faraa'idkii xaq ay arkaynay way khilaaftay
لبا وليس في الفرائض فرائض كما سغنا وكمنا أرك وارث قف دحل قادنيا أو فرض له دحلكيسي فرض ونقضي ثم ورث بالتعصيب هذا فرض انت لقى وريغيبه تعصيب وحكو دحلي تعين كاسي انا فرائض كمنا أرك هل كان waa lagu hayaayo inta uqtadii la siiyay nisfi oo fardiya ayaa markii dambe hadana tacsiib loo wareegay oo tacsiib ahaan ayaa wax lagu siiyay marka al-akdariya khilaafitaanka khilaaftay qawaacida faraa'idka guud ahaan iyo gaar ahaan qawaacida baabul jadwal ikhwa ayaa al-akdariya loogu bixiyay khulaasadeeduna waa mas'alada khilaaftay qawaacida guud ahaan faraa'idka iyo qawaacida jadka الأكدرية يا صلوا هم قاعدوا وحيتين وين قاعدين مي يسدوا حول عيان بس هذا حتى المعادة ويدنا بس هذا وضم بيصير كل جنب دورنا الجدول الإخوة أنت كتاب كنا كوكرا إن شاء الله تعالى حدينا الصور يلو جود كبحين صور جود حدينا كبحين أنت نوجد قليل وحين كل احترنا الجد يا الإخوة قاب كيد حلقة وقادنا وعشر كيني صدحان الله وهلا سوق عنه هذا بجدك يا إخوة واتي الله صار شيء وحويا حالات اللي يري إنه صاحب فرد لتشوه إنه صاحب فرد لتشوهين سقاك وحد عيان وليس صوارين لبضع حالين صار شيء إنه صاحب فرد لتشوه إنه صاحب فرد لتشوهين قاب كاس صوارين أوردن waxay khusaysaa jadka ikhwada la joogaa markay yihiin ikhwa hal dhanka socda oo jadka ikhwada la jooga ay yihiin ikhwa ashir oo keliyaad ayaa intii soo dhiganay waxa weeyaan saa loogu shaqeynaya ama jadka ikhwada la jooga ay yihiin ikhwa liab ilaa ikhwadan laga sheekeynay jadka dhaxalka loola qaybinayay waa ikhwa ashiqaan ama ikhwa liab waa labada mid ahaan haddaba inta ay soo dhiganay ikhwada meesha joogtaa waa hal sinfi waa hal nooc ama waa ashiqadii oo kaliyo liab lama joogaan ama waa liab kaliyo ashiqaan la joogin ka waran hadday dhacdo jadkii waxa weeye ama iyo ikhwadii ama saaxiib fardi hala jooga ama yuguna la joogine walaalahan meesha jooga labadii sinfi way ka socdaan waa qaar isku dhex jira oo waxa weeyaan الشقة يلي أبس كوجرة محل سمانية وحال سمانية محاولة تعسى هالكلام هذا يا يو وإسكدر يو ولا لها الشقة يو ولا لها اللي أب مركل لا تيرنا يا حاجة تراها اللي هو نجي لهاي ولا لها ليش تشوجا ما اللي بالله كيبي كي يرادن ما اللي بالله كيبي كبتين ما اللي بالله كيبا وانا يسدا لهاي ولا لها سوى مركل الشقة كلياتيهن ama waa markay liab kaliya tayihiin haddii labadiiba noqdaanna marka la eegayo walaalaha tiradooda waa la isku darayaa jadku waa la iskugu darayaa walaalaha isku dar ashaqaya liabkay doonaan ha ahaadaane isku dar almucaadda waa isku tirintii ashiqadii iyo liab la isku tirnay maadaama walaalayihiin marka loo eegayo maalibilaabkii jadkay gaadheen mise may gaadhin mise way ka badan yihiin jadka waa la iskugu tirin markaa وهالكاس انتي هو وحبا كدونان ميسو marka jidka la iskugu tiriyay wuxuu qaadanayay la soo saaro ayaa goodhow iyaga isku soo harayaan war idinku yaatiin ashiqo idinku yaatiin liab war arda idinku liab tihiin annagu aan ashiqanahay sawtaan u xijaabi jirnay ma xaaladkii hore ayaa soo baxay wada hadal baa iyagii dib ugu furmaya tiiba la inoo sheegaya inta ay ka badanna 10 ku fahmanay bahada inuu eego al-mu'addatu ما المعادة مثلا الله يقال المعادة وامح هي وحوي أن يعد الإخوة الأشقاء ولا عليها أشقاء إلا وتريو أولاد الأب ولا عليه حق أبو إلا وتريو والله وتريو على الجد أبوه يعني أبوه المرك الله ترنا يو ولا لها ولا توجها ما اللي بالله كيف كير عادين مسوي قارن مسوي كبتين ولا لها مرك الله ترنا يو أي إخوة أشقاء وحلو ترن دونا ولا عليه اللي أب أو إحنا لنا هاي ولا لا ورد إسكوتيريا الشقة دي ما كان ترينو ماشي تشوفتي هذا اللي أب شوغانا إخواننا اللي أب ترى وين قدرنا إخواني الشقة دي ما كان ترينو اللي أب كينا ولا راعينا
laga kala tegi maayo la odhan maayo de kuwaas maanta oo kale waxba qaadan maayaane maxaaba loo tirinaya lama odhanayo waa la tirinaya an yucadda alikhwatu alashiqaa walaalaha ashiqada ah waa in tirada loogu daro awlaad alab walaalihii xagga aabo cala aljaddi marka yacni jadkii de la eegayo walaalihii meesha joogay may gaadheen liblaabkii may ka bateen mise way yihiin mise way ka yaryihiin in loogu tiriyo oo tirada loogu daro wa tawdiixu dalika arrinkaa caddayntiisu waxa weeye aan kuu caddeeyay intaan ka badane annahu ida ijtamaca maca aljaddi ikhwatun ashiqaa jadka marka ay la kulmaan walaala ashiqaa wa ikhwatun liabin iyo walaala liab jucila alikhwatu liabin walaalihii liab waxaa laga dhigayaa un ikhwatan ashiqaa walaala ashiqaa un baa laga dhigayaa xagga tira ahaan liyusaaximuu aljadda si ay awowga u ciriiriyaan lawanagii soo aragnay qawaaciddan waxay ku dhisan tahay mar walba xagga u dheefta badan awowga ayaa la raadinayay oo dawaabidu ay ku dhisnaayeen iyo xaalaadku marka maanta marka walaaluhu yar yihiin jadka muqaasama u fiicnaan jirtay inuu la qaybsado walaalihii marka walaaluhu badan yihiinna jadka muqaasama umay fiicnayn inuu gooni u baxo oo wax dee loo cayimo ama sudus ama thuluthulbaaqi ama thuluth ayaa u fiicnay waayo maanta marka halkaas xaalaadka iman doona qaar ka mid ahbaa walaalihii ashiqadu ay waxa weeyaan faa-idayaan oo marka hore intay walaalahan tirsadaan liabka ah ay tirada ku darsadaan oo idhahdaan waanu badannahay oo libilaabkii waanu ka badanay tusaale ahaan oo jadkii uu gooni u baxo or aniga thuluthkayga ama thuluthulbaaqigayga ama suduskayga aan qaata uu idhahdo waxaa uu qaato ayaa goodhow walaalihii markay isku soo hadhaan waxay leeyihiin idinku liabbaad hiirana waa idu xijaabanayay dee iska taga deeto waxoogaa kuusba u soo hadhayo dee kuwaas la qaybsan maayaan haddaan laakiin kuwa markii horeba aan la tirin lahayn jadku gooni umuu baxayne iyagu la qaybsan lahaa intaa in ka badan waxay ku fahmanaa darsiga gudihiisa liyusaaximu ljad ikhwadii liab waxaa laga dhigayaa oon ikhwa ashiqaa xagga tirada si jadkii ay u ciriiriyaan faida akhada nasiibahu jadku markuu wixiisa qaato waritha alikhwa walaalihii baa dhaxalkii qaadanaya oo dhaxlaya wixii u soo hadhay kaan lam yakun macahum jadun iyadoo ay ka dhigan tahay wax jad ahiba inuuna la joogin waxay leeyihiin jad walaalihii ashiqada intii ka joogtay liab jadka waxaynu eeganaa walaaluhu libilaabkii may gaadheen may ka yaryihiin may ka bateen ayaa la eegayaa soo maaha walaalihii ashiqada waxay leeyihiin waanu badannaho anna shaqiiqii baa nahay kuwana waa walaalahaygii liab isku kaayadar tirada isku kaayadar hana kala saarin walaalaanu nahay jadka marka la eegayo walaalaanu nahay kala bahba aanu ahaano oo annaguna ashiqa aanu ahaano kuwana liab ha ahaadaan mar alliya marka sidaa jadkii loo cidhiidhiyey xaggu kala qaybsan lahaa ay gooni iskooga saaraan oo la idhahdo waxaaga qaado ee goodhow iyagu soo hadhaan bay leeyihiin inagu de haddeen walaala nahay waxa weeyaan ilaa waynu kala mudnayne ma waxbaynu wada dhexlaynaa waxan waynu wada qaadanaynaa mise waanu idi xijaabaynaa maanta annaga idinka awood badan oo inamaanu nahay haddana dib ayagii ay iskugu noqonayaan markaa isagoon jadbe aan la joogin ayaa laga soo qaadayaa iyo waxa soo hadhunba iyagii loo qaybinaya hadday isxijaabayaan iyo hadday wada dhexlayaanba waxiinaidin laa yakhluu min halaati axwaalin saddex xaaladood arinku ka madhnaan maayo an yakuuna fi likhwati alashiqaai dukuurun walaalaha ashiqada lab inay ku jiraan qaar lab ah hadday walaalaha ashiqadii meesha jooga qaar lab ah ay ku jiraan falaa irtha lilikhwati liabin walaalaha liab waxba dhaxal qaadan maayaan bikulli xaalin xaalnaba tiradana waa lagu darsan goodhow markay gooni iskula soo baxaanna ila ikhwada ashiqada lab baa ku jiree ikhwadii liab waxba qaadan maayaan maxayna u qaadanay way soo dhiganay baabu tacsiib jihaad bay lahaayeen jihaad shan oo kala horeeya ciddii isku jihaana mansilooyin ay ku kala dhow yihiin baa jirta ciddii isku mansilaana quwatu qaraaba lagu kala soocayay tii ha ilaawin markaa maanta quwatu qaraaba ayaa taala oo kuwan waa ashiqo iyagaa ka qaraabo adag oo ka qaraabo xoog badan liaabka keliyaata lianna dukuura alashiqaa walalaha ashiqadee labka ahi yaxjubuuna alikhwata liabin walaalihii liab way xijaabayaan idan waxba walaalihii liab qaadan maayaan wamithaaluhu jaddun akhun shaqiiqun akhawayni liabin hadda u fiirso
جد أخ شقيق أخوين لأب وجهرين حال كان لما دي حالة يقول ما صاحب فرد بلا تشوجه مثل لما تشوجه وجد أخ شقيق أخوين لأب صاحب فرد وحويان لما تشوجه صاحب فرد هدون لا تشوجين صاحب فرد هدون جدك يقود لا تشوجين ده حالك جدك وحنقول شيء لو كيو في عن أما ثلث المال أما مقاسمة أما ثلث المال أما مقاسمة فكوا حين لو سو بحي تستمر ثلث المال في عين هاي مرة مقاسمة في عنتها هاي مرة لو دو اسميهين هدي ولا لها ماشي تشوق اللي بالله كيس أي خيرهين جدك مقاسمة أو في عين هذا اللي بالله أي كبتانا جدك ثلث المال بأو في عنا هذا اللي بالله بوران نقضان لبض بوي سناني أنت عمك يساوي فهنو هذا ما أنت صاحب الفرد ما تشوفه واي ما ثلث المال بيسنا مثلا مقاسمة ولا لها تردو ذاك أخ الشقيق يلا بأخ لأب هذه اللي هذا أخ الشقيق إلا إنه حجابه يلا بأ أخ لأبه لبضن أخ لأب تردو بها كدرين هذه اللي هذا الجد يا أخ الشقيق وهتكسو هلال أخ الشقيق نهلا إلى هذا اللي بالله كي جدك واو كيريها إذا جدك أخ الشقيق حولها لا قيب صدق وأنت اللي بالله قيب يوم كنا قيبسي هذا اللي $100 راحين صدح بقول كرسي هذه الأولى لها وحويا جدك وفي عنان لها ولا لها اللي أبعد لتفيرون لهين إلا الشقيق أنا حجابي لكن أخي الشقيق وحوليه جدونا نجيسو أنا قوانو بدنه صدح أخبارنا نهاي أنا الشقيقة يلا بأخ لأب mar haddaan saddex akhni yahay adiga libilaabkaaga baanu ka badanay haddaan libilaabkaaga ka badannana adiga waxaa kuu fiicnay thuluthul maal inaad ka qaadato ilaa saxiix farti meesha ma joogeen idan thuluth qaado 600 saddex meelood meel ka qaado khallixdii 200 buu qaaday saasa lagu qanciyay jidkii ilaa qaacida inoo taalay labadiisii walaal buu tirsaday marka 200 uu qaato jidkii ay isku soo haraan akhi shaqiiq iyo labadii akhliyaab ay akhi shaqiiq wuxuu leeyahay maxaa soo haray 400 tani waa shaqiiq baan idinkuna li abbaatihin wala laba ay noqono waana idin xijaaba da wax dhaxalaa meesha kuma leedin inaad iska taga wala waxa idin karto waa idin siinay laakiin waxa ma leedin ana idin xijaabiya kadib 400 baa soo haray soo ma aragtid hadduna walaalaha tirsan lahayn 400 baa ka go'i lahaa jidka qaadan lahaa inta muqaasamaha saddex bay kala qaadan lahayn 100 baa jidkii ka soo go'o isaga qaatay kuwii kalena muusiina uu xijaabi marka labada walaal awrkun baa lagu kacsanayo waxa weeyaan awowgun baa lagu ciriiriyay laakiin iyagu waxa may qaadan soo ma aragtaan al-mu'aadda waa tirsiga ikhwada li ab la tirsanayo ikhwada shiqadu ay tirsanayaan jidka ay ku tirsanayaan markuu meeshii jajoogo haddana ay xaalaadka qaar ka soo baxasaba walaalihii la tirsaday waxba inayna qaadanaynin haddii markaa ikhwada shiqada ku jiraan walaalihii li'aabay la tirsaday waxba ma laha way iska tegayaan wixii dee loo gato la iska siiyo waa gooniye laakiin waxba ma laha bay leeyihin waxa dhaxalaama laha laba an yakuuna alikhwatu alashiqaau inaatha walaalihi ashiqadu inay yihiin dhadig habla yihiin ithnatayn fa akthar laakiin laba iyo ka badana ثلثان قادرين نعم فلا يتصور أن يبقى شيء للإخوة لأب مركان الصورة قلبا ما هو لما صورا كرو إخوة لأب وحصوها وحصوها مرة لأن أكثر ما يمكن وحاوهم بدنا يسوها أن يبقى بعد نصيب لأن أكثر ما يمكن أن يبقى وحاوهم بدنا الصورة قلتها يوصوها بعد نصيب الجد جد بركو وحي سيقات كدب الثلثان وياه وهما فرض الشقيقتين فأكثر ثلثان هو لو الشقيقة فرد قوت أما لو الشقيقة بدن فرد قادم سرين وياه سو مركتان أو بركنا وحويان ماشي لبا أخت شقيقة شوغا أما صدح أخت شقيقة كو شوغا جد كينوا شوغا ولا للي أبنوي شوغا حدي بركا الله يدهو وحويان لبا أخت شقيقة يجد كليا تؤون وحبا ما soo haray ay wada liab ragga ah ee meesha jooga ama hablaha ah waxba ma soo haray waxba qaadan maayaan haba tirin hadii la yiraahdo jidkiyo akhwaadka shaqiiqaadka labada ama saddexda xoolaha loo qaybiyo jidka waxa u fiicnaan samarka inuu
إلا لبدا أخت شقيقة صالحان أما صدح هذا أخت شقيقة هذه صدح يهين أما اللبيهين ثلثان أي قادنية حالك وهذه اللبيهين أما يصدح يهين ثلثان بيقاتل إسلام كان لبلاب كجت كوي كيريهن لبلاب كجت كوي كيريهن ومعجي كرانو وحويان لبلاب كي مقارسيسنا كما نبضنا جدك مقاسمة وقاعدة مقاسمة وفيها وحيس كده يا مركا مقاسمة ما يشرح كسارة جدك وحلقة يبصر لها ولا له ذاك رأي الصلاة جدك وحنا حبحو فرد وسكقاته مركو فرد جيسا قاته وحي صاها رأون لينادو أنا وعشقا ونهاية بثلثان كيجي أنا قادن لأخوات شقيقات الله بقى ما كبدنا ثلثان بيقاتاني ثلثان كيجي أنا قادنه إذا كنا يقول لي أبا وحي صاها قاته وحنا مصاها يعني marka caynkaasiyana walaalihii liab waa la tirsan oo ashiqadii baa tirsanaya waxna uma soo haraya walaaliha ashiqada halka intaan dhaafin mar kasta oo walaalahan ashiqadu walaalaha liab ay tirsanayaan inay tirsadaan ay baahi u qabaan waa marka walaalaha ashiqadu libilaabka jadka iyagu ayna gaarsiisnayn libilaabka jadka waa marka ayna gaarsiisnayn ayna ka badnayn ee libilaabka jadka ay ka yar yihiin ay u baahan yihiin in walaalaha tirsadaan gowdhow ay ka hoos baxaan laakiin iyagu hadday iska badan yihiin markooda horeba oo walaalaha shaqadu ay badan yihiin oo libilaabkii jidka ay gaarsiisan yihiin ama ay ka badan yihiin marka caynkaasi yaa walaalaha liab tirsigoodu faa'iido badan wax weeyaan ma laha oo wax badan ma soo kordhinayo gadaalna way ka imanaysaa insha allah su-aasha xigtay ku imanaysaa waayo المثال جد أختين شقيقتين أخوين الأب والجد لبا أخت شقيقة يا لبا أخليات جد يا أخت شقيقتين أخت شقيقتين كاسي جد مرقو عيسى قاتل ثلثان بقارن دونان وإحنا جد كي بقاتي لبدا أخليات وحبا وصاهري مايا حدي ماشا لبا صاروا ما تلترسن واينا جد كي بالله قيب سنة لبدا أخت شقيقة إلا لبدا أخت شقيقة اللي بالله كي جد كي مقارسي سنين اللي بالله كي جد كي حق حبلوه أفر شقيقة مركي نقدان ويا والله بدي بأخ شقيقة ودق ويا kadib waxay yiraahdeen war labadan akhlaaq ay tirsanno sayoo lillahi jidka u gaarnay inuu ka badano jidkaasina oo thuluthun u qaato una muqaasamo u qaado markuu thuluthkiisa qaato xoolay saddex lagu dhisay xabad u qaato inaguna aan qaadano xoolaha thuluthan waa laba waxba uma soo harin labadii akhlaaq wala tirsaday oo jidkiiba lagu ciiriyay waxna ma qaadan waxba u soo harin waayay salaha labaad jaddun ukhtayn shaqiiqatayn ukhtun li ab tii horun bay la mid tahay جد لبا أخت شقيقة أخت لأب حاجة لبا أخ لأب ده وحي قادن لهايين وحويان وحي قادن لهايين عصب وحبوكم يسوهرين هل كنا أخت شقيقتين ثلثان وكي قاتان هلا وصار دقني أخت شقيقتين هذه ثلثان قاتان أخت لأبوي دعنا حوما قاتل معصب إنه يشبه يعني معصبنا ما أنت متشوقها هدو تشوقي لهانا وحبوهم يسوهرين حالك صدحات وواليه أولا ترسلين صورة قلنا أي تهاي إنه مرنا وحقاضن كران وحبصوا هاري كران مرنا إنه وحبصوا هاري قلبا صالح ليش يعني كحولان تهاي بكال الله وضع هوري كهورنا حقا حجابية ولاليه اللي أبا إلا ترسطي صالح الله وضعنا دي الشقيقات كيبا قادن ثلثان وحبوا بصوا هاري ولاليه اللي أب وحبوا بصوا هاري وين عيان وحبوا بصوا هاري اسكتغيان كسد حاضوها محين أن يكون الإخوة الأشقاء أنثى واحدة إخوة الأشقاء ليش تشوقوا واحد بد ندك هو كلمة فقط أنثى واحدة فقط وأخت شقيقة فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه النصف مركو جدكم نسكي سقاطه فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه جدكم مركو نصيب كي سقاطه كذبوا حلو فرض يليا نصف غيري إلا نصف قاعدين شرتي حدي مركا وحصوها هران أيا وراليه لا بقادنيا فإن بقي شيء هدو وحصوها أخذه الإخوة لأب وراليه لا بقادنيا وإلا سقط ودعيا ده حصوها لو يسكتيا مركا ورالها الشقام إنه رجيهن نن أما كبرا حرم الله ورالها الشقام إنه يهين هبلو لبأ يكبرا مركا أنا وراليه لا إلا تسدو حو مصوها ريان وحصوها هران لما صورن كرسول قلب معه مركز صدحات وراليها الشقاد وأنثى وأنا حبتك ليا تونس في قادرسة مركز واحد لين جدك وعيسى حتى هذا سكوتريو
jadku wixiisa hala siiyo inta soo hadha ukhtadaa ha ka qaadato waxa weeyaan niskeedii hadday wax soo hadhaan walaalihii ama ila tirsada ha qaataan hadday wax soo hadhi waayeen ha iska tagaan al-amthila tusaalayaal tusaalaha koowaad jaddun ukhtun shaqiiqa akhun liab waa jad ukhtun shaqiiqa iyo akhun liab markaa maanta walaalaha meesha joogaa ee jadka la joogaa waa ukhtun shaqiiqa iyo akhun liab libilaabkii jadka ma gaadhsiisna libilaabkii jadka ma gaadhsiisno dee libilaabka jadku wuxuu noqonayay waxa weeyaan laba akhli ab ama wax u dhigma laba akhli ab ama wax u dhigmay noqon lahaayeen maantana meeshii hal akhli ab iyo xabad shaqiiqa baa joogto libilaabkii jadku way ka yaraadeen idan waa muqaasama wuxuu qaadanayay jadku laakiin de muqaasamadii haddii akhli ab aan la tirin lahayn jadku cidduu la qaybsanaya waa ukhtun shaqiiqa keliyaad haddii la tiriyo akhi liabna jadku cidduu la qaybsanaya waa ukhtun shaqiiqa iyo akhun liab marka waa la cidhiidhiyey oo way tirsanaysaa walaalkii bay tirsanaysaa waa la cidhiidhiyey idan wuxuu qaadanayaa dee yaraanaya goodhowna markuu wixiisa qaato jadku ayaa wixii soo hara ay niskeeda ka qaadan oo walaalkii ay tirsatay qaabkii u tirsato dhamaystiran wax ku qaadan mayse waxa weeyaan waxeedii bay qaadan nisfigeedii inta soo hadhay markaa uu akhiilan qaadanaya oo de masaladan oo kale tusaalahaan 5 baa lagu dhisayaa 5 marka waa muqaasame jadkoo 2 laga soo qaadayo akhaali aboo 2 laga soo qaadayo iyo uqtadii shaqiiqo xabada maanta akhan li ab shaqiiq waa laga soo qaadaya moot اللي هو مسألة المعادة نعم marka 5 markay noqoto ayaa jadkii 2 qaadan jadkii muxuu qaadanayaa 2 3 baa soo haray halkaa markay marasay shaqiiqadii waxay leedahay anu niskaygii ma raba waa 2 iyo badh isku 4 iyo badh badhka soo haru akhi laab qaadanaya hadii xooluhu 500 ay han lahaayeen tusaale ahaan markan hore qaab waxa loo dhigayaa in 200 la jadkii la siiyo 200 la siiyo akhi laab 100 ukhtadi oo akhi iyo jadkiiba libilaab ay ku noqdaan ukhtada saasoo kale u dhigmaysa laakiin mar alle inuu jadku labadiisa boqol qaato ee 300 soo haran bay leedahay uqtadii shaqiiqada ahayd anuu nisba raba xabad uqtaan ahay oo shaqiiqa nisba qaata mucasbikaygi ma joogo isiya niskaygi 500 maxaa u nisa waxa u nisa 200 badhisi 200 jadka qaatay bad waxa weeyaan katanka soo haray adigu qaado saasoo kale weeyaan dhisad dib ay nooga imanaysaa insha Allah taala marka cidhiidhi baa jadkii la geliyay dawaana sidii caadiga ahayd oo markaa dambe casal ahaan isaga intii uu soo hadho muu qaadanaya tusaalaha labaadna waa jaddun ukhtun shaqiiqatun ukhtun liab tanna waa la mid oo muqaasam ahaan baa dhaxalkoodu noqonaya marka jaddun waxa laga soo qaadaya 2 sahmi shaqiiqatun xabad sahmiya ukhtun liabna xabad sahmiya waa isku 4 jaddun labadiisa markuu qaato masaladii 4 lagu dhiso labadiisa uu qaato shaqiiqa waxay leedahay anigu niskaygii ma raba afartan nis laga sii waa 2 uqtadii la waxa uu soo harinba uqtadii li ah waxa uu soo harinba marka labada tusaale waxaan aragnaa jadkii iyo ikhwadii ashiqada iyo ikhwadii laabay meesha joogay marka la isku tiriyo mar ikhwada laab wax soo haraya iyo mareen waxba soo haray labaduba way dhacayso tusaalahan hore waxba akhi laab soo haray jaddun ukhtun shaqiiqa akhun laab waxba u soo haray akhi laab tusaalahan labaadna uqtadii liab waxba uma soo harin oo markii 4 lagu dhisay jad 2 la siiyay shaqiiqada waxa taa niskaygii ma raba 2 noqday 2 loo kala qaatay uqtadii liab waxba uma soo harin ba taa hore waxba soo haray akhi liab tan uqtadii liab waxba uma soo harin labadiibana waa la tirsaday oo tirada waa lagu darsaday hadda masaa'ishan mucaadada way farabadan tahay oo suwar masaa'il mucaadada meelaha jadkii iyo ikhwada shiqadii jooga rag ahaadaan ama rag dumar waa isku xukun ama dumar kaliya too badan oo 2 iyo ka badan noqday ama xabad shaqiiqa ha noqoto iyo wax weey ikhwada li abay la joogaya suwar aad u farabadan oo tir ahaan aad u badan bay leeyihiin laakiin waxa ugu caansan 4 suuro la yiraahdo الزيديات الاربع الزيديات الاربع ayaa marka ay jira oo waxa loo nisbeeyaa صحابي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه isaga xukumay marka الزيديات الاربع xabad kamid oo al-ashariya la yiraahdo ayaa imika inoo qoran oo tusaalahan dambe xaalada saddexaad tusaalaheeda koobaad jaddun ukhtun shaqiiqa akhun liab
الزيديات الأربعة بكم تهاي وأنا مقع جارك العشرية ويقارو العشرية ماشي أي كان صح سو أصل كذا مصحي ونقريه أصل كذا لبعض كان صح ونقريه طبعا أي الله هو مقع الدولة العشرية بالليل هودهن زيديات كم توزن المثابت بالله هو مقع دري صدق كلام كذا كتاب كانوا قمتالو لكن كتبها كان إن شاء الله تعالى أي الله أركضونا كتبها الله أركضونا فكان المهم حال كاس الضحار waxaa dhacaysa in marna ikhwada wax usoo haraan marna inuu waxba usoo harin ayay noqonaysaa azaydiyaat alarbac afartaas waa meelahay wax usoo harayaan bay ka mid yihiin afartuba mid ka mid ah hadda aynu magaceeda ishaarnay kuwa kalena kutubaha kale insha allahu tacaala ayaa waxa weeyaan lagu arki doonaa kutubaha kale ayaa lagu arki doonaa biidni illahi tacaala su-aasha xigtay ugu dambaysa mataa tuxtaaju ila almucaada المعادة قورما لو باهنيا ونيجي هذا الشيء اللي قول اسكو ترسيغا أما ترسيغا ولا لها الشقة ولا لها اللي أبغى ترسليان قورما لو باهنيا لا يحتاج إلى المعادة المعادة لو ما باهنيا إلا في حال موياني التي تكون فيها مقاسمة دحدي ذي هانيسو أكثر للجد جد كمد أبدا لو قاسم الإخوة هدو ولا لها لقى يبسن لها الشقاء ولا لها شقة مركا ay u fiican tahay jadka inuu muqaasamo qaato hadduu walaalaha ula qaybsado waxa weeyaan xaalkii muqaasamada u fiicnaan lahayd oo muqaasamo wixii garab socday uga fiicnaan lahayd unbaa mucaado loo baahdaa oo maxaa loogu baahanayaa liyakthura bidalika cadadu likhwa si walaalaha tiradooda u badato oo wixii jadka kusoo hagaagi lahaana u yaraado oo fa yusaaximu ljadda awowga ay u celiliyaan ama idaa lam takun ilmuqaasamatu akthara lahu haddayna muqaasamadu aan ahayn mid وحويا يستقع أبدا فلا حاجة إلى المعادة لو باهنيبا ودي ولانها شقة اسكو في لنا يجوا إلى اليريان جد كيف اسكو في لنا مركا إخوة كلا ترصدا وما باهنيا المثال جد وأخوين شقيقين وأخ لأب جد لبا أخ شقيق أخ لأب ما أنت لبا أخ شقيق أيا وحي جد كأورهونا لهذا مقاسمة ما شبك ساري أخ لأب إنه ترصدا وما باهنيا ففي هذا المثال لا حاجة إلى المعادة معادة لو باهنيو جد لبا أخ شقيق أخ لأب أخ لأب إلا ترسل لو باهنيو لبا أخ شقيق وهو تحجابي وأمرك كوباري وأمرك لبا إلي ترسل أنا باهي أما قبان باهيه أما قبانو جد كإنه مقاسمة قاطع إنه ثلث قاطع يأسكو مئة واعلم بارك الله فيك وقو الله سبحانه وتعالى هو بركايه أن مسائل هذا الباب كثيرة جدا باب المسائل شيء سؤال بأبضانته والذي ذكرناه انت المشاهدين هو ملخصه وصورورنتيسي وما صوروريو وسترجع المسيدة انت كبض انا كده واحد وقال نقول في مظانه ميراه لقطوه علماء الكبرى ان شاء الله واعلم واحد وقالت ان جميع ما اشرنا وحي وتلمامنا اوردن ومن خلاصة احوال الجد مع الاخوة الجد مع الاخوة حالته لان صار خلاصينا اهي والأكدرية أكدرية والمعادة معاداه فإنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد وحفظ سنة قولة المامية ولا أروه إن الجد وحويا نحلقاتان ومعيس نحلقاتان تصير كل سنة قولك وذا نحل سينه فأما على القول الراجح قولك حوق بدن وأصلي أنه هو رقناه مياه ومن أنهم لا يرثون معه إن تلك وحبق هذين بكل حال نظر فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل المذكورة تفاصيل شرط لو ما باهني والله أعلم إلهي ما علم الفرق حديث عن هذا جدك واحد جاب إخوته توحى تفاصيله وماشي لو قرنا صدق عليه 10 بالله ما باهني لكن هذه لا يلاحظه وما حجابي ويسلم نحريان ونحرك وذقادن يا ما تفاصيل شاء الله باهني وأنا صدق العلم بدن ووين ومذاهبته هي تلمامين صدق أنا قال كتبة تلمامي وحويان إنه جدك حجابي ولا لها أوردن siduu li'umba u xijaabo iyo siduu aabuhuba u xijaabo ayay markaa aqwaasha qaana ay tilmaameen waana sidaa raajixa inagu ku sheegayna inay tahay laakiin sidaa kalena rag waaweyn oo culimo ah oo madaahibta wax weeyaan ah waana sida madhabkeena shaaficiyadu iyo sida hore uu tilmaamay iyo madaahibta kaleba ayaa markaa tilmaamay qaarkood waa khulaaso intaa wixii ka badan dee kutubaha kan ka hoorhoon baa loogu tegayaa insha allahu tacaala darsigeenu halka aan ku dayno marka wixii inta ka dambeeya baabul xisaab ayaa noo bilaabmaya baabul xisaab intuu la bilaabmin ka hor insha Allah wax loo baahan yahay
إنه هي هراء الحوج آد لوصو صاروا الله أعلم وأحكم بالله توفيق